waa tahay isla Afrika aynu joogeynaa cayilka iyo buurnidu waxay halis ku haysaa leeyahay Afrika sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxaanay saadaalinayaan in sanadka soo socda wadamada qaar Afrika ku yaala in shantii qofba mid uu noqon doono qof baruur la fadhiista oo ay dhibaato ku keento cayilka xadaafka ah ayaa la sheegay inuu yahay nidaam khalkhalin kara jirkaaga iyo caafimaadkaaga isagoo horseedi kara in cudurka macaanka kugu dhaco kansarka ama wadna xanuunku laakiin waxaaba jira dhanka kale gabdho Soomaaliyeed oo qaarkood ay rabaan in buurnaadaan oo ay cayilaan oo si khalad u isticmaalay dawooyinka farmasiyada laga qaato ee waxyaabaha kale loo isticmaalo iyagoo gelinaya caafimaadkooda halis si ay u naaxaan Bushra Nuur Maxamed ayaa inoo diyaarisay warbixinta soo jeedinaysa inaan xakamayno miisaankeena waa muhiim si aan iskaga ilaalinno xanuunada halista ah waa farinta khubarada caafimaadka adduunka oo dhan laakiin Soomaaliya haweenka qaar ayaa u arka miisaanka xad-dhaafka ah mid wanaagsan waxaan jeclahay cayilka dadkana isku choice maahan ani choice-kayga waxa waaye cayilka qof walba wuxuu jecel yahay marka ani choice-kayga waxa waaye cayilka inaan ku caylaano u cunay Faadumo magaceeda dhabta ma aha waana mid kamid ah dumar badan oo Soomaaliyeed oo isticmaala daawooyinka sida abitamin iyo dexamethasone laakiin waxay u isticmaalaan ujeedooyinkii aan loogu talagelin daawooyinkaas dexamethasone waa kaniin loo isticmaalo daaweynta cudurrada sida neefta abtaminna waa sharoobo cuntada furta laakiin gabdhahani si qaldan ayay u isticmaalaan si ay miisaan xad-dhaaf ah u saarto Maryamo waxay isticmaashay labada daawo isbitaal ayaana la dhigay muddo 3 toddobaad oo kaliya ay daawooyinkan isticmaalaysay waxaana ku korodhay miisaankeeda 12 kiilo laakiin cayilkii ay rajaynaysay ma aysan helin markii ugu dambeysay in xadintii zaidka ay processka yani igu furay stresska waxay in saxaradeeda dhiig soo raacdo maadaama caloosheeda taagnayd waxbana aysan ka iimaanaynin marka dhakhtarka aan u tagay uu iga qaaday saxaro wuxuu ku kalsoonaan waayay inuu go'aan ka qaato yani jawaabta ay soo saadhay stoolkayga kadib wuxuu ii diray inuu igeliyo tuubo calooshayda ilaa iyo tuubada la gelinayo si ay u soo ogaato meesha effectiga ku jiro kadib markii tuubada la geliyay waxay sheegtay in yani dheefshiidkayga wax ka khaldan yihiin laba tuubo oo calooshayda ku jirana xoogaa ay sameeyeen barar markaad qaadato abtamin iyo dexamethasone labadii isla qaadato waxaad ku tala gashaa aragaaga inuu mataqaanaa ama indhihii kaa dhici karaan ama mataqaanaa araggii uu kaa dhacayo dexamethasone-ka iyaduna waxyaabaha ay samaysa waxaa ka mid ah bilaxaya biyihii korkii ku celinaya marka qofku waa bararaya qof fuugsan buu noqonaya oo bararsan markaas baa gabdhihii wejigii iyo uu bararaya marka waxay u qabaan dee cayil iyo qurux iyo fiicnaan maartay Faiza waa mid ka mid ah shirkadaha soo saara daawada dexamethasone afhayeen u hadlay ayaa BBC-da ku yiri dexamethasone waa daawo yaraysa bararka waxaana loo isticmaalaa in lagu daaweeyo dhowr xaaladood oo caafimaad si la mid ah daawooyinka dhaqaatiirta ay qoraan oo dhan dexamethasone waxaa la isticmaali karaa oo kaliya marka uu ku qoro dhakhtar Faiza ma taageerayso isticmaalka daawooyinkan iyadoo dhakhtar uusan ku qorin BBC-da ayaa sidoo kale la xiriirtay Teal Healthcare shirkadda soo saarta abitamin wuxuuna fadhigeedu yahay Chennai India laakiin kamaanan helin wax jawaab ah laakiin boggeeda internetka waxa ku cad in sharoobadani ay tahay oo kaliya in la isticmaalo markuu dhakhtar ku qoro hase yeeshee daawooyinkan oo dhan waxa laga iibsan karaa goobaha daawooyinka lagu iibiyo dalal badan oo Afrikaan ah waxaana jira walaac laga qabo in baraha bulshada ay saameyn ku yeelanayaan gabdhahani si miisaankooda ay u kordhiyaan alla baayaha isticmaalin walaahi waxa soo xasuustay Maryam hadda waxay gabdhaha uga digtaa isticmaalka daawooyinkaas iyadoo isticmaalaysa baraha bulshada laakiin waxa huwaal ah in wacyigelinteeda aanay saameyn badan yeelan doonin oo loo baahan yahay sharciyo adag tusaale ahaan Ingiriiska iibinta sharoobada abitamin waa sharci darro waxayna dhaqaatiirta ka digayaan cawaaqib xumada ka dhalan karta isticmaalka qaldan ee daawadan ra'yi ahaan aragtida quruxda waa lagu kala duwan yahay adduunka oo dhan laakiin wadada loo marayo way adag tahay fariinta ay Maryan rajaynayso inay gabdhaha gaarto Bushra Nuur Maxamed BBC London